munaasabadan oo xilka kula kala wareegeen taliyihii hore ee ciidanka saldhigga booliiska degmada Cadaado iyo taliyaha cusub ee dhawaan la soo magacaabay ayaa waxaa goobjoog ahay duqa degmada Cadaado taliye xigeenka ciidanka booliiska qaybta gobolka Galgaduud iyo saraakiil ciidan waxaana lagu qabtay gudaha saldhigga degmada Cadaado gaashaanle macallin Xuseen Cumar Muumin oo ahaa taliyihii saldhigga booliiska degmada Cadaado 4 sano ee la soo dhaafay ayaa dardaaran u jeediyay ciidanka uu maanta wareejiyay asagoo kula dardaarmay inay shaqada ay deegaanka ka hayaan si laba jibaaraan waxaan ka bilownay ciidankan maanta imid saldhigga Cadaado waxaan imid anigoo kaligaya deegaankan Cadaado hal askari ee booliis federaal oo ma joogin maanta imid aniga markii la soo bedelay ka bacdi waxa la soo bedelay gabar labadeena ayaan ku joogi jirnay intaas ayaan shaqadii ku bilownay waxa ka bacdi la xareeyay ciidankan oo in muddo shaqay jiray oo iska wax u qabsan ku shaqay jiray ayaa tababar loo xareeyay maanta 200 iyo 3 askari oo deegaankii oo booliis federaal ah oo qaatan la helaya oo intaas aan dadaalkii kadib dhashay waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha degmada oo qayb libaax la ka qaatay dhalinyarada magaalada hooyooyinka oo intaas ciidanka xuquuq la'aanta ahaayeen qayb libaax la ka qaatay aadan ugu mahad celinayaa taliyaha cusub ee xilka la wareegay Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa sheegay in shaqada deegaanka ay ciidanka booliisku ka hayaan ay si liba jibaari doonaan isbedel muuqdan ay la iman doonaan shacab iyo ciidan iyo saraakiilna ka codsanayna inay nala shaqeeyaan hadii ilaahay ma si aan u gaarno horumar gacmooda jir wax u go'aan Soomaalidu tira baan wada shaqeeyno waxaan aaminsanahay in waliba gurigiisa uu ka garado abniga iyo shaqada aan qaban hadii ilaahay way jiraan duruufo badan laakiin inaan ayagana ku shaqeynaan rabnaa hadii Allah idmo gudoomiyaha degmada ayaan u mahad celinayaa oo rumaantii booliska kaalin weyn shaqada booliska qaatay ka soo shaqeeyay inay boolis noqdaan taliye ku xigeenka ciidanka booliiska qaybta gobolka Galgaduud Cabdi Kadawa ayaa sheegay in looga fadhiyo taliyaha cusub iyo ku xigeenkiisa isbedelka muuqday oo balan qaado inuu ka dhabeeyo waxaan u maleynayaa ciidanka halkaan hadda dokumentigiisa la siiyay Cadaado hoos yimaada iyo xawlada waa 190 iyo 119 askari waxaan kaaga fadhinaa 110 ka askari 119 ka askari inaad ku shaqeyso maayarka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa sheegay in taliskii hore uu ku soo shaqeeyay duruufo kala duwan haddana ay ciidanku helaan xuquuqdooda loogana fadhiyo inay gutaan waajibaadka shaqo ee horyaala booliisku waa astaanta deegaanka waa astaanta dalka waa waxa dadku ku seexdo waa waxa dadku markay arkaan ka gambado mideeda kaleeto waxa la rabaa ciidankiina sida aan maanta u labisantiin marka magaalada Mareedan u labisnaatiin ogaada marka aad saarkan wadato laba qof shacab isdireeda midna gacantan qabato oo ku aqbala dadka shacabka xitaa waa ku aqbalaya adoo fara banaan ku aqbalaya laakiin waxa la rabaa inaad diriiskiina wadatiin oo magaalada marka Mareedan dadka la in ka yaqaano oo magaalada markaad Mareedan ina ciidantiin loo jeedo oo dhaqan xumo la in kuma yaqaano hadda wax dhaqan xumo in ka sheegay intaas aan hadlahay hal wax dhaqan xumo mar lama sheegay dad dhaqankiinu waa fiican yahay laakiin xogaa qaar dadka qaar aad moodaa ciidanimada inay ku kalsoonaan Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado